kulanti wanaagsan daawadayaal waxaan ahay Cabdikariin Mursal ku soo dhawaada barnaamijka sahanka nolosha. barnaamijka waxaa inoogu marti ah safiirka Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika oo aan la yeelan doono wareysi dhinacyo badan taabanaya oo ku saabsan Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika iyo waliba xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya labada dal waa Soomaaliya iyo South Africa. mudane safiir ku soo dhaw marka hore barnaamijka sahanka nolosha ee ka baxa telefishinka caalamiga Universal. tani markii safaaradan laga hirgeliyay South Africa iyo waliba markii aad timid waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad ku faani kartaan ama aad sheegi kartaan ee idin qabsoomay maxaa kamid ah? waa mahadsantihiin dadtahin kooxda Universal. muddadan joognay safaaradda gaar ahaan markii lagu soo qoray aniga waxaan isku daynay inaan hagaajino horta adeegyadii safaaradda ay bixinaysay in aan hagaajino taasna way ku guuleysanay oo aad ayaa loo hagaajiyay. haddana waxaan isku daynay inaan gaarno gobolada kala duwan ee Koonfur Afrika. waxaan ka bilownay Cape Town ayaan ka bilownay in servicekii ay usoo doonan jireen xarunta safaaradda usoo doonan jireen inaan usoo doonno meeshoodii lagu soo gaarsiiyo qof kasta meeshuu joogo loogu keeno. waxaan ka ahayn baasaboorka oo loo baahan yahay in faraha laga qaado qofka. sidoo kale gobollo kale oo BE ka mid tahay idina sidoo kale ma soo doontaan serviceka waan gaarsiinay. waxaa kaloo u gudubnay wadamadii deriska ahaa sidaad la socotid wadamada deriska ah safaaradda hoos imaadaan. hadda waxaan gaarsiinaa serviceka ilaa Angola oo uma soo doontaan safaaradda. marka waxay samaysay safaaradda horumar oo tartiib ah marba wax lagu daraayay. sanadkan hadda waxaan ku soconaa inaan Mozambique iyo aan ku soo darno serviceka. waxaa tahay safiirka Afrikada Koonfureed matid safiirka South Africa oo kaliya. waa maxay wadamadaas afarta wadan ee kale ee Afrikada Koonfureed ka tirsan ee aad safiirka ka tahay muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay? والله muhiimad Soomaaliya ay u leedahay waxa waaye sidaad la socotaan wadamadan la isku yiraahdo Koonfurta Afrika la isku yiraahdo Soomaaliya waagii ay ku jireen halgankii gobnadoonka ahaa aad ay u caawisay. wadan aanan Soomaaliya aan taageeran kuma jirin. marka waxay ku hayaan xiriirkaasi hore oo jiray in la soo cusboonaysiyo wax weyn bay u tahay naftirkoodii waxay tahay muhiimad gaar ah in la siiyay. gaar ah markii hore waxaan ka bilaabnay Koonfur Afrika ka bilaabnay laakiin dalabka naftirkiisa waxa ka yimid dhinacooda ka yimid in Soomaaliya ay meesha ay ku yeelato joogistaan ay ku yeelato. taasna waa hadda waa lagu guuleystay. afar wadan ma ahe wadamadan oo la isku yiraahdo Southern Africa badankoodii markii laga reebo Tanzania iyo Zambia iyo laga reebo inta kale waxa way safaaradda ay ka wargaraysaa hadda waana aaday noo soo dhaweeyeen markaan aan u tagnay. fatay ma jirtaa marka wax shaqooyin ah oo tani markii lagu soo magacaabay Afrikadan Koonfureed la isku yiraahdo SADC wax shaqooyin aad ka qabatay oo aad u takalkaas? shaqooyin badan ayaan ka qabanay. waxa shaqooyinka ugu badnaayeen dad Soomaali ah meesh mararka qaarkood lagu xiro. haddaad xusuusan tahay ramadaankii ku horeeyay Zimbabwe ayaa waxa ku xirnaa 22 dhalinyaro ah ku xirnaayeen. safaaradda way u howlgashay ayadoo kaashanayso jaaliyadda meesha Zimbabweanka iyo dad kale muxsiniin ah. dadkii waxa lagu guuleystay in laga soo daayo xabsigii oo dib loo celiyo oo wadankii lagu celiyo ayagoo raali ah. sidoo kale markasta maalin kasta ama marar badan waxaa noo soo dhacaya dad badan oo ku dhibaataysan wadamadaas ku dhibaataysan. waxaan u sameynaa gurmadan u sameynaa waxaan u qaban karnaa u qabanayna oo sharciga noo ogolaanayo. wixii sharciga noo ogolaanayna waa sharciga noo ogolaanaynin. dad badan sidaas aan ku caawinay ayaa jira. marka safaaradda Soomaaliya ee Afrikada Koonfureed hadda waxay ku taalaa magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika. South African waxaan ognahay marka loo fiiriyo adduunka waa wadanka markii uu doonayo wadan kale inuu Afrika saameyn ku yeesho wadanka uu ka soo bilaabo oo uu arki karo muhiimadda koobaad. marka ma isleedahay South Africa muhiim ay u tahay Soomaaliya? aad iyo aad taas hadda waxaa garwaasaday wafdigii hadda madaxweynaha hogaaminayay oo ballanqaad ay ku sameeyeen South Africa inay ka dhigtaan strategic partner inay ka dhigtaan oo ay tahay meel aad muhiim ah. markii laga reebo waxay la mid tahay oo dhahay madaxweynaha New York ay la mid tahay oo intaas safaaradda deganaa. waxaan hadda ballan qaaday oo qorshaha ku darsaday in diblomaasiyadda South Africa ama xiriirka diblomaasiyadda South Africa iyo Soomaaliya in hadda wixii ka dambeeyay aad loo xoojin doono. wax badan way socdaan hadda markuu yimid ilaa wixii ka dambeeyay
wax badan ayaa hadda ka socdaan arrimahaasi. waa tahay marka laga soo tago xiriirka diblomaasiyadeed waxyaabaha kale maanta Soomaaliya ka faa'iidi karto South Africa maxaa ka mid noqon karo waxaan ognahay ANC maanta joogta ANC intay joogta Soomaaliya waxyaabo badan oo wadankan fursad u ah oo ay ka heli karto Soomaaliya la sheergareyn kara jiro marka waxyaabaha diiradda la saari karo marka laga soo tago arrimaha diblomaasiyadda maxaa ka mid noqon kara waxaa ka mid ah oo hadda oo aan madaxweynahan isla afgaranay ganacsiga Soomaaliya iyo ganacsiga South Africa in la isku furi karo oo fursado badan labada dhinacba ay ka jiraan waxaa kaloo ka mid ah in aqoonta taala South Africa loogu baahan yahay Soomaaliya oo ina taas nafkeedii laga shaqeyn karo in aqoontii South Africa in loo rari karo ama Soomaaliya loo rari karo oo madaxweynaha hadda aad uga shaqeyno hayo markii ka noqday booqashada ka noqday aad arintaas xoog u saaray si la isugu furi lahaa labadan wadan la isugu furi lahaa sidoo kale in la saxiixo heshiiskii oo bending ahaa asin meel fiican ayuu noo maraya hadda waxaa la keenay wasiirad cusub oo arrimaha dibadda loo magacaabay waa gabar muslimad ah oo Soomaaliyana aad u jeceshahay xiriirkan inay xoojiso ay diyaar u tahay wasiiradda arrimaha dibadda ee dalka Koonfur Afrika haatan la magacaabay waxay ahayd wasiiradda tacliin sare ee dalka Koonfur Afrika wasiir Goodax oo ahaa wasiirkii tacliin sare ee Soomaaliya halkan yimid heshiisyo kala siixdan adoo noo soo koobaya heshiisyadaas maxay ahaayeen goormaysa dhaqan gali doonaan heshiisyadaas waxay ahaayeen horta sida aan ku sheegay in Soomaaliya waxay rabtaa inay ka gudubto maxaa la dhahay waxbarashadii caadiga ahayd oo musalsalka ay u gudubto farsamo inay u gudubtay rabtaa meeshan waxaa ka jira suuq macnaa aad Soomaaliya South Africaanku waxay ugu horumarsan yihiin dhinaca farsamada heshiisyadaas badankooda waxay ahaayeen hadda 3 sano soo socoto waxaa la dhisi doonaa Soomaaliya sidii oo wasiirkuba oo sheegay 100 xarumood oo farsamada laga baranayo marka taas waxaa rabaa Soomaaliya inay ka caawinto sidoo kale South Africaanku waxay ka caawinayaan in ay macallimiinta jaamacadaha inta in la keeno ama ku sameeyaan master degree and PhD degree heshiiskaasna hadda uu socdaa naftiisa ma hakanin uu socdaa gabadha hadda la keenay oo macnaa arrimaha dibadda la geeyay wali waxay diyaar u tahay inay kaalinteeda ka ciyaarto heshiiskii ay bilowday inuu dhaqan galo haddii marka ardaydan waxbarashada deeqda waxbarashada South Africa ay siin doonto ee Soomaaliya ama Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika deeqaas waxbarashada South Africa bixin doonto kaalintooda ma ka heli doonaan sida wasiirka balan qaaday wuxuu dhahay meel kasto aan deeq ka helno waxaan siinaa oo dhahay qoondo oo dadka meesha jaaliyadaha meesha ku nool ayaa qoondo ka siinaa tusaale wuxuu soo qaatay Kuwait ay ka heleen 10 deeq waxbarasho 10kii deeq waxbarasho waxaa la siiyay dadkii meesha deganaa marka wasiirka qorshihiisa wuxuu ku jiraa in la isku dheelitiro meeshii jaaliyad noo joogto oo laga helo deeq waxbarasho in jaaliyada ardada jaaliyada in wax laga siiyo qoondo loo sameeyo oo percentage loo sameeyo ay uga qayb qaataan deeqdaas waana balan qaaday wasiirka markuu joogay waa la weydiiyay su'aashaasi uu ku jawaabay waana cadeeyay inaad wax ka siin doonaan haddii wixii ka helaan waxaan la soconaa safaaradda Koonfur Afrika ee Soomaaliya ku leedahay markii horeysay waxay ku timid codsi jaaliyada ay codsatay waxay balan qaadeen inay dhisan doonaan safaaradda qarashkeeda ay bixin doonaan waxaan la soconay safaaradda waxay ku jirtay guri kira ah laakiin la doonay in Soomaaliya iibsato qorshihii iibsiga safaaradda Soomaaliya halku maraya hadda wuxuu marayaa stage proposal ah madaxweynaha waxaa hordhignay proposal aan hordhignay dhowr guri oo loo keenay in la gado oo qiimihiisa hordhignay madaxweynahana wuxuu dhahay 100% inaan sanadkan gudaheedii mid kamid ah guryahaasi inaan gadan doono safaaradda kaliya ee guriga safiirka iyo safaaradda in la gadi doono waa balanqaad uu sameeyay oo yiri waana sameyn karnaa oo yiri waxa aan sameyn karnaa ay kamid tahay markii proposalkii arkay marka hadda waxay ku jiraan kala xulashay ku jiraan guriyihii inay kala xushaan guriyo dhowr ah ilaa adiga 8 guri kala duwanada oo lacagtooda kala duwan la hordhigay madaxweynaha arintaas waxaa ka shaqeynaya madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda ka shaqeynayaan in sidii loo gadi lahaa guriga safaaradda South Africa iyo guriga safiirka sidii loo gadi lahaa safaaradda Soomaaliya ee Koonfur Afrika marka imise waaxood ayay u qaybsantaa tusaale ahaan qaybta immigration-ka iyo qaybaha kale okay safaaradda horta markii laba qayb ayaa u kala baxdaa qaybna waxa waaye toos wasaaradda arrimaha dibadda waaye diblomaasiyadda wasaaradda arrimaha dibadda la qaybna waa u qaybsanayaal oo ayna ka shaqeeyay safaaradda gudaheedii marka waxyahooda laba qayb 3 qayb la dhihi karaa qaybta oo adeegyada bulshada bixiso oo loo yaqaan consular service-ka qaybta maamulka iyo shaqaalaha qayb waaye qaybta immigration-ka jirto ayadana baasaboorada
oo farsamo ahaan baasaboorradii ay sameeyaan. saddexdaas qayb waxaa raaca waxaa nala jooga qaybsanayaal qaybsanaha militariga nala jooga oo ciidamada nala jooga oo qaybsamaha dhaqanka iyo waxbarashada nala jooga oo qaybsanaha arrimaha diinta nala jooga ilaa hadda intaasay nala joogtaa. waxaa jiray u qaybsamin dhinaca ganacsiga laakiin weli booskaasi waa banaan yahay. waxaad moodaa in muhiimad weyn oo u leeyahay ganacsada Soomaaliyeed ee dalkan Koonfur Afrika u qaybsanaha dhanka ganacsiga. ma jirtaa wax qorshe ah oo aad dhanka ganacsiga Soomaalida ku aadan oo aad rabtaan inaad la wadaagtaan ganacsada Soomaaliyeed maadaama aan ognahay in muddo ah inay hal qaab oo kaliya ganacsada Soomaaliyeed ku shaqeysato? wallaahi waxyaabaha oo aan hadda ka fikirayno waxa horta qaybsanaha processkiisii ayaa dheeraaday mooyee waa magacaaban yahay. marna waxa waaye u qaybsanayaasha waxaa loogu talagalay xoog inay saaraan xiriirka labada dal. Mesela u qaybsanaha ganacsiga markii la leeyahay waxa waaye inuu ka shaqeeyaa rabaa xiriirka ganacsiga labada dal inuu ka shaqeeyo inuu xooga saaro. kadib waxaa u soo raaca ganacsatada Soomaaliyeed waxay daneynaysaa inuu ka shaqeeyo. marka waxa horta ka horeeya oo aan aad diirad u saarayna inaan abuurno xiriir ganacsi markuu abuurmo waxa abuurmaya marka shaqadii u qaybsanaha ganacsigana waa abuurmaysaa. tan noogu muhiimsan taas waay. tan kale ganacsatada Soomaaliya marka hadda biseelay gaareen adiga hadda sida la socotid meeshii hore ay ka ahaan jireen warato iyo waxaas ka ahaan jireen hadda waxay u gudbeen ganacsiga kale sida warshadaha ay galeen waxay galeen dhulalkay galeen guryahay galeen meel badan hadda waxba iska bedelay ay nafkooda biseel ayaa gaareen. hatta dhinaca sharciyada markii hore waxay ahayn sharci la'aan iyo waxaas ku ganacsi hadda waxay raadinayaan sharci waxay ku darsadeen hadda inay raadiyaan khabiiro oo tala ka siiya ganacsigoodii. marka biseelkaas markii la gaaro faham waxaa imaanaya inay isla qabsadaan ganacsatadii wadankan iyo ganacsatadii Soomaaliya oo inta joogtay ganacsatada Soomaaliya inay ku xiraan ganacsatadii wadankii inay ku xiraan tiina meel fiican ay maro haysan. rag badan oo ganacsata ayaa arrimahaas hadda ku haminaya ka shaqeynaya. waa tahay safiir waxaad ka dhawaajisay iskaashi ganacsi ee labada dal. iskaashi ganacsi haddii uu yimaado labada dal u dhaxeeya South Africa waxyaabo badan ay soo saartaa jiro laakiin Soomaaliya maxay soo dhoofin kartaa oo dalkan loo soo dhoofin karaa tusaale? wallaahi soo dhoofin lagama hadlayo hadda Soomaaliya meelaha ay ganacsiga ka keensato waxba uma dhoofiso wax badan uma dhoofiso laakiin waxaa jira fursado hadda la abuuri karo markii ganacsigaas bilowdo waa wax Soomaaliya laga soo dhoofin karo. waxyaabo badan ay noo sheegeen waxaa kamid ah kalluunka kamid ah waxaa kamid ah hilibka kamid ah oo Soomaaliya laga keeni karaa waxaa kamid ah maxaa la dhahay waxa beeraha ka baxaan galeyda kamid ah ay sida noo sheegeen ganacsatada laakiin hadda ma haystaan tashiilaadkii ay u baahnayeen ganacsatada Soomaaliya oo lagu soo saari lahaa waxaas. marka waxyaabaha kan hadda waxaan ognaa waxa la ogaaday warshadaha South Africa waxay soo saaraan inay ganacsatadayna ay ka soo qaataan Dubai ka soo qaataan ayuu toos uga qaadan kara South Africa. waxay tagayaan wixii warshadii South Africa soo saareen Dubai la geeyna Dubai Soomaaliya ka qaadanaysa Dubai saas. laakiin hadda waxaa jiri kara route toos oo Soomaaliya loo geyn karo. waxaa jiro dad badan oo ka cabanayo dhanka safaaradda qaar waxay leeyihiin dadkii cusbaaye wadanka soo gali jiray waxaa lagu xujeeyaa home affairs markay tagaan oo kale inuu helo passport Soomaaliya oo la yimaado. qaar waxay ka cabanayaan in dadka gohomka heli jiro Soomaaliya ku laaban jiray in gohomka waagi hore oo free ahaa oo lacag laan ahaa haatan lacag laga dhigo oo safaaradda ay bixinayso halkii home affairs Afrikaanka laga bixin jiray. marka dadka qaar waxay istusinayaan in safaaradda danaheeda ay fiirisay oo tan dadkii aysan fiirin. arrintaas maxaad ka wallaahi horta saas inaan loo fikiro horta aadan uga xumahay sababtoo ah safaaraddu waa public institution dadka iskale ma laha safaaradda dadka u maleynayaan inay leeyihiin dadka ka dhex shaqeynayaan iska ma laha waa public institution markii lagu dhaw waxa way dadweynaha iskale waxaana lagu wadaa inta badan public institutionada ama hay'adaha dawladda waxa lagu wadaa canshuur laga qaaday dadka iyo macaawino laga qaaday dadka iyo waxaasa lagu wadaa. safaaradda runtii go home oo markii hore lacag la'aan ah lacag ka dhigtay horta ma jirto. safaaradda dhanba waxay ku taagan tahay servicekaas yar. aniga waxaan xusuustaa 2013 inta imid waxaa xayrnaa in 1,500 qof in ka badan ayaa waxay u xayrnaayeen inay helaan warqad sharciyeysan oo ay kaga baxaan wadanka inay wadanka ka baxaan waa la diiday. markii heshiis la galnay South Africaanka waxay ogolaadeen in dadkii warqad loo sameeyo go home tan la leeyahay markaasna lacaga lagu bilaabay. lacagtaasi ayaa waxa lagu socodsiiyaa
wax alla wixii safaaradda u baahneed kiradiyaa lagu socodsiinaa shaqaal hoosaadkiyaa mushaar laga siinaa waxaa la siinaa korontadiyaa lagu socodsiinaa waxaa lagu socodsiinaa maxaa la dhahay amnigiyaa lagu socodsiinaa haddii aan waxaas lahaynin oo safaaradda xirinto waxaasna waa la weynaa marka waxaan isbarbardhignay lacagtan yar la qaadayo qofka oo laga yaabo sanadkii 2 sano oo hal mar inuu safaaradda yimaado u baahdo warqad lacagtaas waxay badbaadisay sumcaddii dalka iyo waxaa kaloo badbaadisay in dadka Soomaaliyeed loo adeego safaaradda meesha ay joogto tan la leeyahay safaaradda Gohamka la heshiis maxaa la yahay Home Affairs la heshiis wax kama jiraan ajaanib dhana la weydiiyaa markii soo galaan qof kastoo ajnabi ah oo qaxootinimo soo doonto waxa loo diraa safaaradda loo diraa imma waa inuu keenaa ID national ah aniga waxaan kaga duwanahay dadka kale badankooda waxay wataan ID ay wataan oo wadankooda laga soo siiyay oo cadeynayo Soomaalinimadiisa ama wadankiisa cadeynaysa laakiin nasiib darro anay kuweynay ma wataan ID ma wataan markaas waxa laga xujeynaa waxa leeyahay passport keena passportkan sida la socotid sanadkii ama 5 sano hal mar passport aad u baahanaysaa ma aha wax joogto loo qaadanayo ma aha waxa la sheegayo passportada waxa lagu gataa $300 lagu gataa wax ka jiraan ma laha aniga iyo Kenya waxa noo dhaxay $20 noo dhaxaysa Nairobi dad ka qaadanaysa iyo hadii South Africa ka qaadanaysa $20 noo dhaxaysa waa jirtay dibaato laga kulmi jiray oo waqtiga ah oo soo daahi jiray passport laakiin hadda waxaan ka dhignay ugu badnaan bil qofka bil gudaheedii hadii farsamo dhibaato farsamo aan imaanin ugu badnaan bil dadkii hadda May passport dalbadeen dhamaan waa wada badankooda waa wada haystaan dadkii dhan marka waxaan ka dhignay maalin waxaan horumarinaynaa cilad jirta ayaan ciladii meesha ka saarnaa waxaan horumarinaynaa serviceka safaaradda bixiso marka mid aan hadii la isbarbar dhigo war safaaradda ma inay xiranto iyo inaan adiga canshuur aan laga qaado wax laga qaado maalinta service u soo baahato lacagtaas yar laga qaadanayo lagu badbaadiyo magacii Soomaaliya lagu badbaadiyo servicekii dadka loo fidanayo lagu badbaadiyo marka yaa macnaha yaa fiican marka wixii aan isbarbar dhigno marka taas ka dhihi lahaa waa tahay safiir waxaad ka dhawaajisay arinta ku aadan qarashaadka dadka qaadana safaaradda isaga dibirtaan oo kale marka miyaysan jirin wax budget ah oo aad ka heshaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ama wasaaradda maaliyadda Soomaaliya wallahi adiga hadda dawladdeena waa la socotaa oo dawlad oo hadda soo taagaysanayso oo aanan tawar badan aan haynin waxay la tacaalaysaa arrimo muhiim ah sida amniga kale oo qarash badan ay ku bixiso budget waa jira oo loogu talagalay laakiin helitaankiisi iyo ku filnaanshaha waxa laga hadlayo waa taas budgetka oo loogu talagalay waa running cost wax la dhaho wax korontada la iskaga bixiyo waxaasi oo 3 bilood hal mar la soo diro marar qaarkood aan la heli karin sidoo waxa la socotaa meeshaan 3 bilood lagu sugaayo waxa lagu sugaa adiga bish shanteedii hadii lacagta guriga aad bixin wayso waa laga saaraa bish shanteedii hadii amniga aad bixin wayso waa laga ciidamada waa laga wadana waxyaabo badan waxa jira marka ma ku filna wax safaarad ku filan lama dhihi karo dawladdu waxa budgetka waxa ku baxaa diblomaasiyiinta joogan ayaa waxa ka qaataan mushaharadoodii bil kasta waa loo soo diraa ma aha marka wixii loogu talgalay budget waxa la dhahaa wax oo lagu kafar gareyn karo wax kasto jiro oo safaaradda u baahan ma aha waa tahay safiir marka fiirisa marka qaabka shaqada u socoto iyo la macaamilkii bulshada iyo caqabadaha idinku badan ee hadda la kulantaan maxaa kamid ah wallahi aniga hadda markaad aad safaaradda dhex joogto iyo marka waxa la sheegayo la yirida laga saaro safaaradda smooth ayaa u socotaa dadka markay soo doontaan adeeg ay soo doontaan saacada gudahooda ay ku helaan qofkii adeeg u doonto waa weydiin kartaa qofkii oo midalan waxaan dhahay gobolada qaaraan laga soo diraa midalan Cape Town maanta wixii laga diro birid dib ay ugu soo noqonayaan jawaabtooda waa la soo siiyaa waxa kale oo ku soo darnay oo ay ku rafaadi jireen dadka waxa la police clearance oo macnaha dambi la'aan warqadda dambi la'aanta tii waa sameynay waxaan sameynay qofka safaaradda u tagaa faraha laga qaadaa Muqdisho loo diraa Muqdisho la maalintii labaad ay soo jawaabaan ay soo diraan qofkii asoo message joogo ayaa waxa loogu diraa boostada loogu diraa meeshii ugu tagtaa qofkii safaaradda imaanaya waa tahay safiir dadka qaar waxay aaminsan marka ama ay leeyihiinba safaaradii iyo jaaliyadii wax xiriir kama dhaxeeyo oo adigina hadda waxaad sheegtay inaad waxyaabo badan jaaliyad u qabataan marka
maxaa qaldanaa dhankaas leedahay sidee wallahi xiriirka aniga horta la yirahdo way xiriirka waa gooni aniga hadda waxaan joogaa Cape Town aan joogaa shalay ilaa maanta ilaa waxaan la kulmay jaaliyadan la kulmay am dad mas'uulinka jaaliyadan la kulmay xiriirka marka dhiman oo la sheegayo ayaan garan la'ahay ayaan dhaweyd madaxweynaha noo yimid madaxweynaha hal maalin wuxuu u baajiyay safarkiisii inuu jaaliyada la kulmo safaaradda iyo dad jaalid mas'uuliin jaalid kamid ah isla markii waxay qaban qaabeen xaflad qurux badan oo aad yaabayso oo dadka ka soo galay aad u badnaayeen marka xiriirka noocaas marka waxaan rabaa mugtay waxay kala leeyihiin jaaliyadan wax bay leedahay safaaraddan wax bay leedahay labadooda markii meel isku imaadaan inay wada shaqeyn ka dhaxayso aniga odayaasha jaaliyada badankoodii culamaa u diinka iyo waqti rabaan wayno soo wacaan waqti rabaan waan wacnaa waan la shaqeynaa marka hal shay oo meesha ku jiri kara waa jirtaa safaaradda oo aanan haysan tasiilaadkii loo baahnaa oonan gaari karin meel kasta ay wax ka dhacaan taas waa gooni laakiin markii dhibaato dhacdo oo nala soo waco inta taagtayna waa u gurmanaa waana ka qayb galnaa waana sameynaa marka taas horta aniga ima muuqato waxa la dhaho safaaradda iyo jaaliyadda way kala go'an tahay hadday kala go'naan lahayd aan maanta inta ma joogi lahayn kama qayb gali lahayn waxyaabaha aan ka qayb galay shalay shiraan la fadhiyay daraad waxaan ka qayb galay xafladii ciidaan ka qayb galay marka wax kastaba wax oo awood diidays waa jira maana wax markay dhacaan safaaradda meel kasta ma joogi karto waxa u diidaya awoodeedii tasiilaad ma haysan waxa u diidaya sharciga wadanka qofka diblomaasiga waa inuu fasax qaataa meeshuu aaday laga warqabo waa tahay safiir meesha markaan taagannahay waxyaabo badan oo lidinku eedeeyo way jiraan oo ay u badan tahay inaadan waxba ka qaban karin waxyaabo badan wax ka qaban kartaan oo mararka qaar eed ka imaan kartaan way jirtaa marka haddii aad bulshada u kala cadeyso maxaad u idman tihiin oo dadka qaxootiga halkan jooga u qaban kartaan maxaad u qaban karin waa su'aal aad u fiican dadka qaxootiga waxaan u qabanaa hadda مثلا waxaa la soo weydiiyaa waraaqaha oo waraaqa kala duwanaa la soo weydiiyaa waan u qaban karnaa waana u qabanaa maalin kasta waan u qabanaa waxa kale oo u qaban karnaa markii dhibaato dhacdo مثلا meel baa la boobay qof dhibaato la geystay qof la xiray waa u gurmanaa intaan waxaan la hadalnaa dawladda South Africa la hadalnaa qolooyinka amniga security la booliska la hadalnaa wixii gurmad aan u sameyn karno waa u sameyn karnaa laakiin waxa la isku haysto waxa waaye sharci ku joogista meeshaani dawladda Soomaaliya shaqo ay ku leedahay malaha meesha ina sharciga aad ku joogaysid waxa iskala dawladda South Africa way ku diidi kartaa way ku ogolaan kartaa rejection ka lagu siinayo ma aha wax safaaradda ku xiran oo wax ka qaban karto ma aha ayaga procedure-koodii iyo waxay leeyihiin xeerarkoodii waxaasay leeyihiin tiya ay raacayaan marka waxyaabaha in la kala saaro u baahan waxa waaye waxana waa sharciyada dawladdan iska leedahay oo safaaradda aan faragelin ku sameyn karin waxana waa wax oo ayaguna soo weydiinayaan dawladda South Africa inaan xaqiijino qofkaas inuu Soomaali leeyahay inaan xaqiijino inuu u sameeyno maxal warqad dhalasho inaan u sameeyno waxaas waa sameeyna mudooyinka dib waxa soo badanayay dadka lagu dilay dalkan in isbitaaladii ay ku jireen oo kale meedkooda uu ku daaho aan si dhaqso loo soo bixin karin mararka qaar maxaa sabab arintaas horta waxa sababa arinta koow sababayso waxa waaye qofka markuu sharci haysto ha ahaada sharci qaxooti ah way u sahlan tahay hadii la dilo ama haduu dhinto meedkiisi inuu la soo baxo laakiin waxa dib ka imaanaya qofka aan sharciga haysanin warqad baan u soo qornaa shalay ugu dambeysay warqad la soo qoray warqad baan u soo qornaa marar qaarkood waxay ku soo aadaysaa waqti fasax lagu jiro ama weekend lagu jiro oo xafiiskii xiran yahay ama xafiiska naftigiisa xiran yahay waxa daahaya marka isku warqabka ama communicationka ayaa daahayo sidaas darteed daahitaas keenaysa mooyee mar alla markii la soo gaarsiiyo wali warqadaas waa lacag la'aan waa loo soo qoraa waana laga soo saaraa ugu dambeyntii safiir maxaad message ama fariin ah ee aad jeceshahay inaad u gudbiso jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika iyo waliba dawladda Soomaaliya jaaliyadda South Africa waxay ka mid tahay jaaliyadaha ugu fiican oo banaanka noo joogaan waayo waxay aad u ilaaliyeen sumcaddii wadanka aad bay u ilaaliyeen dad oo la aqoonsan yahay oo sharaf badan oo dad shaqaysanaya ah loo aqoonsan ayay yihiin waa jaaliyadaha ugu fiican ay ka mid tahay haddii tan koowaad aan noqon tan labaad waaye taas horta waxa waa ugu macadcelinaa waana ugu hambaliyeynaa tan kale waxaan leeyahay inay midnimada ay adkeeyaan wixii ay ka dhaxeeyo oo wadajir ahaan u leeyihiin inay ilaalsadaan waxa kamid ah safaaradda safiirka ma laha
diblomaasiyiinta joogaan ma laha waxaa iskale Soomaaliya oo dhan iskale ayaga wakiil u ah Soomaaliya meesha inay ilaalsadaan safaaradoodii ayaga iskale inay ilaalsadaan taas oo kula talina inay ka shaqeeyaan safaaradaas inay si horumarto inay ka shaqeeyaan sidoo kale iyo naftirkoodii inay ka shaqeeyaan wadanka ay joogaan inay wax la qabsadaan taas waa taas tan kale oo aan dawladda message aan u diray fariinta aan u diray waxa waaye sida ay u balan qaadeen madaxweynaha iyo wasiir arrimaha dibadda u balan qaadeen inay u soo jeestaan dawladda South Africa inay wax la qabsadaan waa wadan oo horumarsan oo wadan wax kasto Yurub laga raadin lahaa laga heli karo waa wadan oo diyaar u ah inay Soomaalida ay caawinaan oo ay wax la qabsadaan marka in fursadaas laga faa'iideysto aan la luminin mar kale in loo soo jeesto markaan dawladda South Africa in wax la qabsado iyo xisbiga hadda jiro ANC in wax la qabsado taas ayaa dawladda fariintaas ayaa u diraa waana balan qaadeen madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda markay yimaadeenna waxay garawsadeen inay South Africa ay tahay meesha oo kaliya laga heli karo xalka Soomaaliya laga heli karo intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka sahanka nolosha ee toddobaadkan oo inoogu marti ahaa safiirka Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika iyo waliba Afrikada Koonfureed Dr. Jamal Barrow anigoo ah Cabdikariin Mursal ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay dhanka farsamada iyo waliba duubista waxaa gacan weyn ka geystay Maxamed Axmed Siyaad Geli tan iyo toddobaadka dambe intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh safiir aad u mahadsantahay